السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنكي حلق انتداها وقيس عبد الله كارية وصاحبكين أن عاوي هذا اللي وين أقولها ندين وضع نمكي أقصاها وصدح أفر شن لح تضبط اسكسو ديباي أو تردي كبطي أو على سوء حسابين كرين أو لقى قوليستي باهي أودنتي دوركي كوتشري لا أو عيدمدي الصومالي توس اسكسو ديباي نول بيشي سراتنا يا إديها يا إلهي سبحانه وتعالى لوغا مهدينيا دhanka kale waxaan idin hayaa madaxweynihii lafta gareena ahaa oo awood sheegtay midowgii musharaxiinta ee baydhabo yimid awood u sheegtay hadalkiisiina fulay sanad iyo barna lagu daray xildhibaanadiina afkiisa oo ku yiri kama dalban anigu xildhibaanada koonfur galbeed muddo kordhinta ay ii kordhiyeen mana weydiisan micnaheeduna taas waxay tahay niman la haystaa oo hadda aan ka hadli karin oo xilka waa kaa qaadna aan dhihi karin oo awalba meesha ku aruursaday ahaayeen waxayna isku ogyihiin oo ka hadlay xaflad weyn oo xala dhigtay sanad iyo xoogaa u sii xafladaystay wuxuu xilka ka xayuubiyey nabadoonkii mukhtaar roobow beeshiisa ayuu xilka ka xayuubiyey iyadoo la og yahay inay ku ekeed muddaxileedkiisii laba maalmood ka hor ama maalin ka hor ee muddaxileedkiisu ka ekaa laba maalmood ka hor ayuu ka xayuubiyey xilkii midowgii musharaxiintana wuxuu yiri waxaan raadinaysiin meeshaan ka dhexeli maysiin nabad iyo waxaan ogolnahay gogol iyo dowladda koonfur galbeed inay dhisanto lafta gareen waa u suurtooday hadafkiisii oo ka lahaa maamul goboleedka koonfur galbeed meeshuu ka jallaafayn lahaa dowladda xasan sheekh maxamuudna wuu sii adkaystay waddada u furan xasan sheekh maxamuud uu bilaabayana waa sugi doonaa laakiin waxaan hubaa oo xaqiiq kuu sheegaya lafta gareen inuu salka dhigtay meeshaas uu maaragtay wax walba iyo ma'aamirad walbana maaragtay uu heshiis la galay heshiiska waxa u saldhigay oo gacanta kula fariisiiyey maskax kula fariisiiyey xoolihiisa qaatay wixiisa jiitay waa ninkii sheekh aadan madoobaha oo kasii horreeyey raggaan oo dhan sheekh aadan madoobana uu furfuritaan badan yahay wixiisana wuu duubtaa dadkana wax kama siiyo laakiin dibaa looga soo qayliyi doonaaho wixii aa qaadatanna siyaa dhihi doontaan dibaad ka maqli doontiin social media idaacadaha ayaa ka maqli doontiin wuu sii jiita wixiisii lafta gareen meeshii wuu fariistay sanad iyo xoogaa ayuuna ku darsaday oo xooggiisa oo jeebkiisa uu ku darsaday dowladduna raalli kama ahan waa wax gacan marooqsiyo oon doorasho ku imaan waa wax koonfur galbeed oo dhan raalli aysan ka ahayn oo ka qayliyayaan social media idaacadaha iyo meel walba lafta gareenna meeshaas wuu hubsaday wuuna fadhiyaa markaan taas uga soo gudbo lafta gareen madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaa dib ugu soo laabtay magaalada dhuusamareeb wuxuu wadana ilaahay subxaanahu watacaala yaqaana laakiin markaan rag hoose waraystay saraakiil aan waraystay waxaa la yiri qoorqoor asbuucyadan soo socda dagaaluu qaadayaa wuxuuna dagaal ku qaadayaa xardheere saadkiisii iyo wax walbana iyo boorsooyinkiisii oo lacagana wuu wataa horuuna u socdaa tuutuhuna gashanayaa asagaana aafta fariisanaya waa siday saraakiishii ii soo gudbiyeen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ha og inuu dagaal qaadaayo iyo inuu maaragtay meeshiisa madaxtooyadii iska fariisanayo lacagta seef garaysanayo kolley wuxuu dabaduhu ku maqnaa wixii lacagaho ku soo dhacay inuu bangiyada soo gashana waa dhici kartaa maxamed cabdi kaariye dagaal nin u socda maaha nimanka iyakoo tabar beel ay agfa fadhiyaan oo qoryaha laga qaadan karo oo la boobi karo oo ciidanka loo diri karo meel walba lagu burburin karo ay agfa fadhiyaan ma aqaan sababta loo ilaalsanayo oo loo dhowrayo oo maaragtay loo dhaqaajin la'yahay adoo dowlad dhan gacanta ku haya haddaad 800 oo kun oo gacanta kugu jirta ama 1 milyan oo gacanta kugu jirta aad ka fikirto oo tiraado dadkan ma kala gaari kartid adduunyo iyo shidaal iyo cuntana lama kala gaari kartid dowladnimadiina ay gacanta kugu jirto hankaaga aad ka hadlaysaa dowladnimaduna saas maahan dadka ay ka dhalato dhan markay daacadnimo kaa arkaan aad shaqaynaysa kaa arkaan adduunyo meel kastay kaaga imaanaysaa maxaa cabdi kaariyana hadduu dadka kalsooni tuso reer galmudug oo dhanaa ag dhigaya waxay hayaan hantiday hayaan haddii wasiir yahay hadduu askari yahay hadduu yahay shacab qolo walba ag dhigaysa waxaan ka codsanaynaa dowladda galmudug oo maaragtay dowladda galmudug oon ku abtirsanno waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada tirada badan oo la aruurshay oo macuusleyda ku jirto oo nooc walba ku jirto inay dhaqaajiyaan oo nimanka waa laga adkaada wayna wiiqmeen rasaasna ma haystaan ciidanna ma haystaan ay iska dhiciyaan